hay-adda xasaradaha adduunka ayaa waxay sheegeen in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee ka taagan gobolka Gado uu khatar amni ku keeni karo dalalka Geeska Afrika. warbixinta warkani waxa ay haya Burhaan Diini Farax. warbixin dheer oo ay soo saareen kooxda caalamiga ah ee xasaradaha ee magacooda loo soo gaabiyo ICG ayay waxay ku sheegeen xiisadda ciidan ee ka taagan gobolka Gado koonfurta Soomaaliya una dhaxaysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland inay keeni karto dhibaato amni oo weyn oo Geeska Afrika saameeysa. warbixintan waxaa lagu sheegay in ciidamada labada dhinac oo isku dhac uu ku dhexmaray magaalada xuduudda ku taalla ee Balad Xaawo inuu aad u saameeyay siyaasad ahaan iyo amni ahaanba dowladaha gobolka gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia. kooxda ICG la yiraahdo waxa ay warbixintoodan ku sheegeen in ismaandhaafka ka dhex jira dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland ay si dadban u saameysay dowladda Ethiopia ama dowladaha Ethiopia iyo Kenya oo labada dhinac la kala saftay. labadan dowladood ayay hay'addu waxay sheegtay in ciidamadooda oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ka socda ee AMISOM in haddana dhaqdhaqaaqooda gobolka aad looga dareemay isla markaana ay la kala safan yihiin labada dhinac taasoo xaaladda si adkeyn karta sida hay'addan ay ku doodayso. ICG waxay tusaale u soo qaadatay in dowladda Ethiopia ay ciidamo tiro badan u daabushay gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ku yaala markii sidoo kalena dowladda Soomaaliya ay ciidamo gaar ah gobolkaasi geysay. ciidamada Ethiopia waxay toos u taageerayeen kuwa dowladda Soomaaliya waxaana gobolka Gado laga hoos saaray maamulka Jubbaland halka dowladda Kenya ciidamo dhanka xuduudda ay kala leedahay gobolka Gado ay keentay kuwaas oo iyana taageero siinayay ciidamada Jubbaland ee gobolka Gado qayb ka jooga. labada dhinac toos uma aysan muujin inay dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland la kala jiraan hase ahaatee waxay baarayaal u sheegeen in ciidamadooda ay sugayaan amniga gobolka si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab ka geysto. hay-adda warbixintan diyaarisay ee xasaradaha dunida ka faallootay ICG waxa ay sheegaysaa in sanadkii 2013 labada dowladoodba ay wada taageerayeen Axmed Madoobe in gobolada Jubbooyinka ama koonfurta Soomaaliya uu al-shabaab ka saaro hase ahaatee dowladda Ethiopia ay hadda u muuqanayso inay u wareegtay dhanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. arrintan ayay hay'addu waxa ay ku sheegtay inay hoos u dhigayso dagaalkii al-shabaab lagula jiray. khilaafka siyaasadda Jubbaland ee labada dowladood wuxuu aad u soo ifbaxay markii ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ay garoonka diyaaradaha Kismaayo ka celiyeen diyaarad saanad iyo ciidan waday oo Ethiopia ka timid 2 bishii Agoosto 2019 markaas oo u diyaar garowga doorashada Kismaayo ka socotay. Kenya waxay aaminsan tahay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu saaxiib dhow la yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu doonayo in dalka laga baabiyo nidaamka federaalka loona xiibsibto nidaamka dowlad dhexe sida kooxdan ay sheegayso. dhacdooyinka ICG ay soo xigatay waxaa ka mid ah howlgalkii lagu soo xiray Mukhtaar Robow oo Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay doorashadii koonfur galbeed kaas oo ay ka qayb qaateen soo qabashadiisa ciidamo Ethiopian bishii December sanadkii 2018 iyo ciidamo Ethiopian oo la geeyo Galmudug dabayaaqadii sanadkii naga dhamaaday 2019 kuwaas oo ka qayb qaatay sugidda amniga doorashadii Galmudug ee uu ku soo baxay Axmed Cabdi Qoorqoor. hay-addan labada dowladood ee Kenya Ethiopia waxay ku eedeynaysaa ka sokow taageerada siyaasadeed ee dhinacyada Soomaaliya isku haya sida Jubbaland iyo dowladda federaalka in xataa saanad ciidan labada dhinac ay ku kala taageereen taas oo dhibaato ammaan gobolka oo dhan ku ah. xiriirka Soomaaliya Kenya ma ahayn mid wanaagsan tan iyo markii uu soo baxay sheegashada ay Kenya ku doonayso inay badda Soomaaliya ku qaadato hase ahaatee waana taas waxay leedahay hay'addan sababta ugu weyn ee Kenya ku taageerayso maamulka Jubbaland. si looga fogaado amni darro gobolka oo dhan saameeysa hay'addan waxay talahaan u soo jeedinaysaa in xoog badan la galiyo xalinta ismaandhaafka siyaasadeed ee gobolka ka jira. waad mahadsantahay Burhaan. qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxa laga filan karo shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku yeelanayaan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud shirkaas oo la filayo in maalmaha soo socda uu ka qabsoomo magaaladaas. haddaba qaar ka mid ah shacabka Muqdisho waxaa mikrofoonka raadiyo kulmiye la dhex qaaday wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen. kulankaas wuxuu u muuqdaa kulan Soomaalida madaxda hormuudka ee wadanka ka qayb galeen waxaan ka rajaynaynaa hadana shacabka Soomaaliyeed oo kamid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho inuu ku soo baax wax fiican oo ummadda dan u ah danaha ummadda ka turjuma madaxda meesha ku jirsan ka soo saaraan macna warmutiyad natiijo fiican oo ummadda waxtar u leh. waxaad u malaysaa hadaa fiiriso kan inuu macnaha ka qiimo badan yahay kii hore maadaama madaxda wadanka ugu sarreysay ra'iisul wasaaraha sida madaxweynaha kale ay ka qayb galayaan marka waxaan ka rajaynaynaa duu Ilaahay in macnaha natiijo fiican ka soo baxdo. shirar badan horay lan qowday meel badan la ka qowday bay dawlad ka qowday garow la ka qowday wal ha ku qaadooyo ha ku bahana ma aragna faangne laakiin shirkad Dhuusamareeb wal haani hor ku duwinayna oo man arago in kasto tan la iska saaday meel lisla buu
والنتيجة لو ساسح قبائن مغملة كل إنay midnimada ay ka taliyaan oo ay wax laga qoray ay leeyahdaan intaasan ka baaqalahay runtii waxaan leeyahay shirkaas waxa ka soo bixi doona wax mira dhala oo u horseeda ummadda inay ka baxdo walaaci iyo ishaysiga iyo maxaytan rajada laga qabay inaan dadku meel inta tago shiri karin oo aysan go'aan gaari karin Soomaaliya marka waxaan leenahay aadaan ugu faraxsanahay wax qurux badan oo ummaddu ku faraxdana ka soo bixi doona horta khilaaf kastaaba hadii dadku uu meel isku yimaado xal baa laga gaaraa waxaan isleeyahay wixii la isku haystay wax badan baa laga talaasulay waana la wada hadli doonaa wada hadalkaasna waxa ka soo bixi doona waxay Soomaaliya u aydo oo aan hore ugu socono waxaan ugu baaqayaa inay shirkaas maxaytin maanta meesha uu maraya waa qurux badan tahay mar hadii maamul goboleedyada iyo madaxda maxaytin qaranku isku tagaan wax hor mira dhala oo ummaddu ku faraxdo oo dhibaatada looga baxo oo khilaafka looga gudba inay ka soo baxaan ayaan ugu baaqayaa oo ay aad uga taxadaraan dhibaatada Soomaaliya ku dhacday inay dib u laaban taa fikirkeyga aan ka dhibto taas waxay ila tahay in hooga maaragtay isku soo dhaweysho ay muuqato oo hooga liisu tanaasulayo waxa waaye sidii hore hooga waa ka yara duwantay saamfilaayo waxa waaye hooga inay madaxda dawladdu oo dawladda federaalku ay hooga ay u dhugunuglaadeen ishaagada maamul goboleedyada iyagoon inay mas'uuliyadooda ay leeyihiin madaxda qaranka federaalkana ay mas'uuliyadooda leeyihiin baa ilay tahay anigu marka shirkaas sidoo u aragtaa waxa soo dhigtay shirkaas wax oo ummadda Soomaaliyeed maaragtay farxinayo ama dan u ah inay ka soo baxayaan baa u filaa aniga shirarkii hore way kala duwan yahay oo ka rajadiisu shirarkii hore waa igala fiican tahay aniga xasan ahaan aad u faraxsanahay inay maxay madaxda qaranka isku tagado Dhuusamareeb waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan natiijo wanaagsan maadaama madaxda qaranka iyo kuwa xagga jooga ay soo kulmayaan asdana wax wanaagsan oo maasha Allah midnimo laga filanayo meesha ka dhacdo in reer Dhuusamareeb inay soo dhaweeyaan madaxdooda insha Allah horumar wada inay gaaraan halkaasina waxay ugu dambeeyeen fikirkii dadweynaha ee ku aadanaa aragtidooda ku saabsan shirka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ay ku yeelanayaan Dhuusamareeb Farxaan Maxamed Xuseen oo ka tirsan Radio Kulmiye ayaana noo soo ururiyay codadkaasi webiga Shabeelle ayaa fatahaad waxa uu ka sameeyay deegaano hoostaga degmada Balcad iyadoo oo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaasina ay gaareen halka uu fatahaadu ku sameeyay webigaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warkan soo diray tuulooyinkan ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo webiga Shabeelle oo gaaray gaar ahaan maamulka degmada Balcad ay gaareen tuulooyinka Buulaabtooy Kurshaale ee mas'uuliyiinta ay gaareen ayaa waxa ay ka soo samata bixiyeen qoysas halkaas ku go'doonsanaa oo fatahaada ay saameysay Maxamed Cabdullaahi Axmed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Balcad ayaa idaacadda Kulmiye u sheegay in ay fatahaadadan ay saameyn ku yeesheen qoysas aad u fara badan ilul beereed tiro badan oo ay dalagyo ay ku beerteen beeraleyda ku dhaqan tuulooyin hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana uu tilmaamay in maamulka degmada Balcad qoysaskan haatan ay ka soo badbaadiyeen fatahaada webiga Shabeelle ay soo gaarsiiyeen degmada Balcad haatan ay wadaan qorshe ay dib u dejin ugu sameynayaan qoysaskaasi maalmihii la soo dhaafay ayaa maamulka degmada Balcad wuxuu wada dadaalo dheeraad oo ku aadan sidii ay ugu soo samata bixin lahaayeen qoysaska ku go'doonsan goobaha fatahaada ee saameynta ku yeelatay ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe xilli ay sii kordhayso fatahaada webiga Shabeelle oo goobo hor loo gaarayo degmada Balcad ee gobolkan Shabeellaha Dhexe Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar
saraakiil ka tirsan Somaliland ayaa digniin iyo hanjabaad u diray maamulka Puntland. Cabdisataar Xaaji Cali ayaana dhameystiraya warkan. taliyaha guutada 130aad ee Somaliland Cabdi Fataax Keesdiid Baydan iyo Siciid Maxamed Cali Durraan oo ka tirsan saraakiisha Somaliland ayaa digniin u diray wasiiro ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay gaaray deegaanka Horofadhi ee gobolka Sanaag. saraakiishan ka tirsan Somaliland ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin mas'uuliyiin ka tirsan Puntland kuwaas oo taga deegaanada ay maamulaan Somaliland. mas'uuliyiintan oo la hadlay warbaahinta ayaa carabka ku dhiftay in ciidamada Somaliland ay heegan buuxa ugu jiraan sidii loo adkeyn lahaa kontaroolada deegaanka Horofadhi ee gobolka Sanaag. isimada waxgaradka cuqaasha ayay ku wargeliyeen in haddii tilaabo ay soo qaadaan Puntland ay ka hortagi doonaan. cid allaale cidii Puntland ee isku dayda inay farageliso hawsha ka taagan Horofadhi waxaan isimada cuqaasha waxgaradka loogu baaqin hadday tallaabo soo qaadaan waxa wixii halka ka dhacay annagu ciidamadayada waa ku amarnay annaga heegan baan ugu jiraa ilaa Horofadhi ilaa halkaan taaganay. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ay isku dayaan gudaarka ay gudan yihiin inay xagga uga soo baxaan waxa la wixii ka yimaada annagu marka hore waxaan u sheegaynaa in Horofadhi aysan Puntland iyo siyaasadeeda iyo qof inta oo soo qaatay uusan tagi karin hawshana sida ay u socoto loo daayo. haddii cid siyaasadaysan oo Puntland ay faraha la soo gashana haddaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland tallaabo madax bannaan baan ku qaadan. cid siyaasadayn karto oo kale jirto odayaashana anaga joogna hawsha. hadalka ka soo yeeray saraakiishan ka tirsan Somaliland ayaa imaanaya xilli wali uu jiro muran dhuleed u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland kuwaas oo ku muransan lahaanshaha gobolada Sool iyo Sanaag. waxaa laga dayrinayaa xaaladda caafimaad dad uu dhaawac ka soo gaaray dagaal ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ku dhex maray degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Axmed Maxamed Ibraahim oo ka tirsan KNN ayaa warkan faahfaahinaya. labadaas xabadooda midana isartay oo saas u sartay midana ay dhabarkii laga soo baxsho isbitaalku iga soo baxay. waxaa laga deerinayaa xaaladda dad waxyeelo ay ka soo gaartay israasaaseen ciidamo ka tirsan dowladda oo ku dhex maray xaafadda Calakamin ee degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. isku dhacaasi ayaa la tilmaamay inay wax ku gaareen dad gaaraya 4 ruux kuwaas oo qaybtooda ku jira koomo isbitaal Digfirna yaala halka qaybta kale xaafadahooda dib loogu celiyay kadib baxanaano loo sameeyay. Avocado Samadoon oo kamid ah dadka deegaanka ayaa sharaxaya qaabka ay wax u dhaceen. waxaa geystay ciidamada dowladda qaar kamid ah sababta u geysteenna waxay ahayd arbacadii hore gelinka dambe wadadan waxaa loo xiray laamiga ka timaad madaxtooyada isfartibada gasho waxaa loo xiray wasaaraha Soomaaliya ayaa loo xiray sida noo sheegay mudan xasan qeer. waxaa dhacday baabuur Cabdibilaah sida aan xogta aan ku maqalnay oo qaad waardiyeynaya inuu ka yimid dhinacan iyo wadadan Tawfiiq ka timaada wadada markay ka timid meeshan ciidan ay joogaan asagana ciidan baabuurkan ciidan saaran yihiin labadii ciidan wax dhaxmar anagu ma naqaano. waxaan ka war helnay xabad dhacdaan ka war helnay xabadii markii dhacday waxa waaye dadkii waa kala carreen dadkii markii kala carreen intii Ilaahay ugu qadaray Ilaahay wax gaarsiiyay